howlgalkan ayaa waxaa si wada jir ah u sameeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM waxayna ay ka sameeyeen deegaano dhaco wadada isku xirta degmada Balcad iyo magaalada Jowhar. deegaanada howlgalka ciidamadu ka sameeyeen waxaa kamid ah deegaanka Hanshiq, Elbaq, Ceelka Geelow iyo deegaanka Raaxooy oo dhammaan ah deegaanadan deegaano hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada ayaa isku fidiyay dhulka hoodka ah oo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab mana jirin wax iska caabin ah oo ay la kulmeen inta uu howlgalku socday. taliyaha ururka 57 ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Yuusuf Abuukar Cali Xuubey oo ahaa taliyihii horkacaya howlgalka ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay. si la socotaan wadadaas dhibaatooyin badan ayaa shacabka Soomaaliyeed ku qabeen, mas'uuliyiinta dawladda kala duwan ku qabeen, ciidamada AMISOM ku qabeen, ciidanka xoogga dalka ku qabeen. howlaha waxay ku saabsanaayeen operation-kaas wadadaas sidaan wax uga qaban lahayn ayaan u taaganahay. wallahi deegaanadu sidaad u taaba adiga waa Ceelka Geelow, Elbaq meel la yiraahdo, Qalimow, tuuladan hadda aan joogno gololey iyo hawdka u dhaxeeya intaasba. taliyaha ciidamada AMISOM ee deegaanka Hanshiq Cornel Didio Nisingiyumfa ayaa sidoo kale ka hadlay howlgalka. Patrol together on the main supply load Mogadishu Jowhar. We are very happy because there is a good collaboration between SNA and us. saraakiisha horkacaysa howlgallada ayaa sheegay in howlgalladan ay noqon doonaan kuwa sii socon doona. Maxamed Amiin Yabarow, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.